الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعن باوذ دمانتين كسر وادا مركلة يو شبكة ورقة قبل نيوز يو برنامج كانوا عن كي دونا وراي سجارة ونولي لني قدوميها اسبدل دون كحسبك طلبها يا أضب أحمد صندون حسن أن أو عنو لي لنا وراي سيدنا يبدون تعبانيا أنت بدنا كتحلقة hawsha ay hayaan iyo isbedelka ay wadaan waxaan jeclahay runtii ugu horeyn inaan u mahadnaqo waqtigiisa uu nasiiyay waxaana hadalka uu inoogu bilaabi doonaa bal hawsha imaka halka ay marinayaan. bismillaahir rahmaanir rahiim. aad iyo aad baad mahadsantiin horta in Gabile News waxa aan sidaad sheegtay waxaan anuugahay warunta gudoomiyaha isbedel doonka garabka isbedel doonka ee udub oo dhawaan adigu aanu arintaasi martaqaana shirar yar yar oo hoose oo noo socday dabadeed aanu guddi yar oo farsamo oo aanu gudoomiye ka ahay ay u dhacday marka haddii aan soo bilaabo adigu sooyaalkii garabkan isbedel doonka waad ogeydeen كل صحافة إن بدن بعد كل ساعتين حسبي أضب أو متقنا ده شن سنة عمل لح سنة ده سوى شقينا أي وثلاثة سوى هي وحنا ضمع سنة بلوجي إن أن جوديهيس ثلاثة وحكبد له أو هالكاسين متقنا أنه سكدنا إن ثلاثة إن جودها حسبنا حكبد له شيء ودعي ويدي دودنا waxaanu la sugnay warkii wuxuuha waqtigii shirweynuhu qabsoon lahaa dabeetana shirweynuhu waxaanu isku daynay in aanu tartan ka dhax sameeyno xisbiga dhaxdiisa shirweynaha oo qabsoomay bishii labaad sanad kale ku jirno iyo tistaxad xamoyaan dabadana adigu arrinkaasi waxa dhacday in madaxweynihii talada dalka hayay ama ahaabada gudoomiyihii markaa xisbiga ahaa in si ay ka noqotayba oo mataqaana xisbigii iyo hawshiisiiba oo doodobay ama afdubada ku sameeyay dabadeedna rag badan oo guri ka hayay inay talada dalka wuxuu ku yeeshaan ama ay ka qayb galaan ama ay xisbiga dhexdiisa ku tartamaan oo anigu aan ka mid ahaa ay u suura gal weyday in ay shirkii ka qayb qaataan oo shirka dhexdiisii uu ka dhaco wax la yiraahdo tartan oo xisbiyadu ay ku kala baxaan ama xisbiyahanka dhexdiisu ku kala baxaan ay suura gal weyday kadib markii madaxweynuhu oo mataqaana dad aad u fara badan oo ilaa ku gaaraya oo golihii dhaxaba aan ahayn oo uu soo ururiyay oo uu ka keenay dacalada mataqaana dalka iyo hargeysa oo ku ururiyay dabaadna safka horena la soo fariisiyay koox yar oo adigu xagga muuqaalka mataqaana ama wasiirale ama dawlad badankeed yahay in xubnihii mataqaana xubnihii xisbiga ee figurkooda la garanaya xagga hore soo dhigay laakiin waxa xagga dambe oo dhan fadhiya ana ahayn haba yaraatee dad xisbiga wax ka garanaya ama wax ka fahmaya ama wax kala socdayba على أي حال أرنكاسي وحا uu dhacay si afduuba oo aan hore uga dhicin intii aynu ku jirnay dimuqraadiyadda xisbiyada lahayn afduub aan ka dhicin xataa labada xisbiya kale ayaa ka dhacay dabadeed arrinkaasi waxa uu noqday waxa uu kalifay in xisbiga uu kala jabo oo uu soo baxo garabkeegani marka magaciisa la yiraahdo garabka isbedel doonka udub oo aanu ku taamayno in aanu xisbigii in aanu taladii dalka aanu wax ku yeelano oo hadday dhici weyday in aanu xisbiga dhexdiisii wax ka bedelo ay noqoto halkii kale aanu wax ka bedelayno inaanu codkeega iyo tamarteeda iyo waxayba ku xoojino. marka Axmed maxamed waxaad uga jeedaa sida inta badan dhacda marka ay mas'uuliyiintu isqabtaan ودي قربتانو حسبي كلا يكبيرا ما واحد وجه ده حسبي لك كلا أيام دون ما ينكبير كواحد تلاوة سولي ونصعتها ما نان إسلام يلدقين هسه شهل ككليا إنه إسلام يلدقين كواحد ضرب كيس بدل ضرب كأضب
waxaan shayga aan isla meel dhignay waxa weeye in la ahaado garabka isbedel doonka ah ilaa inta doorasho laga gaarayo oo codka iyo tamarta iyo hawsha iyo juhdiga lala wadaago xisbiyada maxalka si isbedel uu u yimaado. dhowaan waxaa soo ifbaxayay in kooxdiina isbedelka wadday ay waxoogaa faraaruq ku yimid shalay toolo kale idinku waxaa soo saartay waa saxaafadeed ku beelinaysaan warka sheegaya in ay doonaysaan inaad ku biirtaan xisbiga kulmiyeed marka maxay idinku wacanbada maranaysaa inaad waxoogaa adigu arrintaasi waxay ahayd baan filayaa wuxuu nagaga timid dabayshaas waxay naga timid xagga saxaafadda xubin naga mida oo mataqaanaa ayaa waraysi ka qaadeen dabeetana waraysigii isagu si fiican buu u yeelo sidan aan kuu sheegay unbuu yidhi laakiin saxaafaddii oo haatuf ahayd baa sii bumbuunisay oo dabeetana mataqaanaa warar aanu isagu siinin sii bixisay oo odhanaysa waxay la diyaar garoobaysaa waxay diyaar u yihiin inay ku biiraan halkaa oo ilaa xafladdii kulmiye ilaa xafladdii sidii loo samayn lahaa baa laga wada hadlay bay yidhahdeen qoladaas saxaafadda laakiin waxba kamaa jirin annaguna maanaan iskhilaafin wax iskhilaafoo dhexdeeda jiraana ma jiraan sidii baanu wada soconnaa haddaala badankeedii leeyahay wuxuun baanu ka jawaabnay in aanaan hadda wax aanu isla soo qaadnay iyo muxuu ahaa arrimo hoose oo aanu la gallay xisbi ka mida xisbiyada aanu jirin laakiin iskaashiga aanu caddaynay ee aanu xataa ka wada hadalnay wuxuu ahaa sidii loo bedeli lahaa hoggaankan dalka sare jooga ee la ambaday dee taladii qaranka la ambaday ayaan sidii aanu uga bedeli lahay ayuun baanu ka wada hadlay. aad baad mahadsantahay daawadayaakaasi wuxuu ahaa axmed sandoon xasan oo ah guddoomiyaha garabka isbedel doonka xisbiga udub oo waraysi dhinacyo badan taabanay aanu la yeelanay barnaamijkeena gaarka oo amuurtaasi aanu ku eeganay intaasi ayaanu ku soo gabagabayn doonaa waxaa dhinaca farsamada iyo iskudubaridka hawsha iga caawiyey cabdiraxiin axmed carab inta barnaamijkan mid lamid aynu ku kulmi doona inta ka horeysa waxaan dhammaantiin ku dhaafanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.